Asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamayaa oo walaalkiin injineer dhaqane oo hadda jira uga baratan soo jeedinta cilmiga kombiyuutarka iyo programyada waxaan rabaa maanta inaan la wadaago barnaamij aad cajiib u ah oo loo isticmaalo in daatada lagu xareeyo barnaamijkan waxaa ku qoraysaa koromahaaga soo kacsanaysaa kadib waxaa ku qoraysaa toolbox baa ku qoraysaa kadib kobo toolbox markaa ku qodhid sidaana ku soo baxaysa oo login buu ku siinayaa logonka haddaad hore mid u lahayd waad gelinaysaa hadda anagu kaasoo kale waan lahayn haddaan gelina wuu noo furayaa laakiin ma rabna maanta inaan sharaxno sida loo galayo waxaan rabnaa inaan sameyno akoon cusub halkaa hoose u jeedid baa ku dhufanaysaa haddii kale hadduusan sidaan ku ahayn oo kale saddexda dhibcood baa tagaysaa kadib halkan ba waxaa soo dooranaysaa desktop site maadaama programku uu ku macaan yahay desktop ahaan adoo telefoonkaaga isticmaalaya ka dhiganaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa create accountiga programkan xogta lagu diyaariyaa dadka waxaa ku diyaariyaa organizationada ka shaqeeya xogta looga baahan yahay ama volunteer ku shaqeeyaan ama caadi ha u shaqeeyaan program aad u muhiim weeyaan haddaa baratidna waxyaabo badan ka anfacaya inaad research sameysid halkaas u jeedid halkaasoo wuxuu ku leeyahay saa u jeedid magacaaga dhammaystiran baa gelinaysaa axmed jah haddaan geliyo halkan organization namekii baa gelinaysaa CRC ama bisha casmidkaa rabtidhe halkan wuxuu ku leeyahay username ka dhow kusoo gali lahayd geli halkan oo kale haddaan geliyo usernamekaasoo kale aan iska gelinayaa furashan nambarkayga ku darayaa halkan gmail email buu ku weydiinayaa emailkaaga iska gasho email meesha kugu jiraa la rabaa verified ah hadhow wuu ku weydiinayaa soo active garee buu ku leeyahay sectorka qaybtuu ku weydiinayaa qaybahanna waa dooran ka dhah hadba waxa u isticmaalaysa anaga waxaan dhahaynaa humanitarian education kadib countrygii buu ku weydiinayaa countryga halkaana ka dhahaysaa maadaama meesha joogtid ay ku xiranta hadba meesha doontid dooro had anugu Soomaaliya oo kale aan joogaa estan aadaya st oo kale meelahan ka baar Suudaan Soomaaliya taasaa ku dhufanaysaa kadib genderkii buu ku weydiinayaa male baa tahay mise female wuxuu ku weydiinayaa nooceed ama gabar baa tahay mise wiil waxaa dhahaysa adigu kadba kaa tahay laakiin anigu male baan dhahayaa maadaama wiilahay halkan password buu ku weydiinayaa passwordkan waa inaa password strong iyo gelisaa password xoog leh baa laga rabaa marka halkan password adag haddii kale uu kaa diidayaa password adagoo kale aan gelinaynaa soo jeeda strong password weeyaan saa markaa u gelisid marka koowaad waa gelinaysaa kadibna waa ku celinaysaa isla passwordkii kadib maxaa dhahaysaa create account save iska dhaho account muxuu yiri account created accountigaagi waa abuudhay waa ku mahadsantahay inaad abuudhid kobo balkis tool accountigii fadlan activation linkiga emailka ka soo day kadib soo active garee buu ku leeyahay halkan aan ka noqono gmailkaaga tag halkan waa gmailkiisa u jeed gmailkaaga tag hadda meesha kugu xiran yahay hadda kaasoo aan ii saaran yahay gmailkayga waan ka dhiganayaa kaygii kale halkan waa ujeedaa waxa ii soo diray message bii soo diray sabarti ay leeyihiin kobo toolbox si aad u active gareysid waxaa ku dhufanaysaa kan usernamekaaga waa kaas buu ku leeyahay waa injineer dhaqane intaas weeye buu ku leeyahay usernameka daartid koobihiisa haddii kalena iska daa halkan tuuba si u active gareysid kaa ku dhufo kadib koramaha ka dooro fadlan la wadaag asxaabtaada sii share garee insha Allah barnaamijka qaybtiisa kale si wax loogu diyaariyo
qaybta labaad baan ku sharaxaynaa. Saa u jeedid hadda waa soo galnay uu noo soo kacay waan active garaynay. Halkaan aad u jeedid waa kan Injineer Dhaqane 35 73 Dhaqane 623 waa soo galnay. waa kan iyo hadaarat abuuri ka dhaa mid cusub abuuri ka dhaa templatedan uu leeyahay mid aad soo upload garanaysid buu leeyahay import ku sameynaysid qaybta koowaad barnaamijka halkaan idin joogi doontaa insha Allah la wadaaga asxaabtiina subscribe tana saara oo mahadsantiin wabillahi tawfiiq.